بسم الله الرحمن الرحيم. عاو waxaa magaalada Columbus Ohio arrin Mareykanka ka dhacay kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada Columbus Ohio ee ka soo jeeda Somali State. bulshada noocyada waxay kala hayeen ganacsato, dhalinyaro, odayaal iyo aqoonyahan iyo qaybo kale. shirkaas oo lagu falanqeeyay arrimaha ka socdo maalmahan Somali State ayaa waxaa ka soo baxay 3 qodob. kulanku wuxuu taageero buuxda u hayaa dowladda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa. wuxuu garab taagan yahay xukuumaddaas iyo tallaabooyinkii maalmaha qaaday. wuxuu kulankani ka soo horjeedaa digniinna u dirahayaa shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee rabo inay ku celiyaan gobolkaasi taariikhdii mugdiga ahayd uu soo maray ee uu ka soo baxay mar dhaweyto last year. arrintaas aad baan uga soo horjeednaa. waxaan u sheegaynaa shakhsiyaadkaasi inay ka baxaan waxyaalaha ay ku jiraan ayna ka shaqeeyaan nabad iyo midnimo. qodobka saddexaad waxaa weeye in aanu ugu baaqayna bulshaweynta Somali State in ay ka shaqeeyaan midnimada gobolkaasi, dadka isu keenaan, walaalo noqdaan. ugu dambeyntii kulankani waxaa loo sheegayaa dowladda Ethiopia iyo EPRDF shakhsiyaadka ka mid ah inay ka daayaan faragelinta ay ku hayaan jigjiga iyo xukuumadda halka ka shaqeyso arrimaha Soomaaliyeed ee gobolkaasi. waxaa go'aan ka gaari kara Soomaalida gobolkaas in faraha looga qaado soo jeedinaynaa. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa qaybaha kale ee ragga shirka soo qayb galay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. odayaasha sharafta leh oo bayaankan aad ku qiimaha badan oo tilmaamaya midnimada ummadda iyo sharafta ummadda waxa weeye Soomaaliyeed state-ka waxa weeye ummaddu waxa weeye maanta ay ku midaysan tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan midnimada. maxaa yeelay ummaddu waxay jiritaankeedu waxa weeye ku jiri karaa midnimo. taadii la waayo waxa weeye wax kale ma jiraan. لذلك رب سبحانه وتعالى وحولي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربي واحد عن لنا هاي، رسول واحد عن لنا هاي، كتاب كري عن لنا هاي. ومضها أدونك وحيابها كل جبان أردن أي أمة الصومالية وحوي ستا. أعطيتها وحوي الدين، أعطيتها هاي جنسية هي أصل كوضع اسمها، أعطيتها وحوي اللغة، أعطيتها وطن. أنتي بواكم ليسن هاي شرفتها أسمانتي نوتي من أن يعشرنا. أنتي ما أنت إنك كفكرية إن كل أبطال تجينك شعب كتير. ninkaasi waxaan oran karaa waa nin dib u socda oo ummadda waxa weeye hagardaamo iyo dhibaato waxa uu horseedaya. ummadda midnimadeeda waxa weeye hal la ilaaliyo, gacmahana isqabsada. fakunu antum wa bani akhiikum makana al-kilyatayn min ad-dahaan. sidii ninka shaacirka uu ku yidhi taaba rimaaxu ida ijtamacna takasuran wa ida faradna takasarna axaadan. midnimadu waxa weeye waa waxa keliya oo lagu gaari karo dowladnimo. waddadii dowladnimada lacagta saarteen dhinacyada ka istaaga. madaxweynahana waxa weeye taageera. waddankuna hal madaxweyne ayuu leeyahay. madaxweynahaas amarkiisa iyo nidaamkiisa intii nin kale uu bedelayo ayaana waxaa weeye anagu taageersannahay. jazaakum allah khayr. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa maxamed cabdiqaadir cumar. waxaan ka mid ahay odayaasha magaalada Columbus Ohio. sida uu sheegay baas khadar ra'yigaa uu soo jeediyay baan ku raacsannahay. haddaan wax yar ku daro waxaan ka imid dalkaas waxaana ka soo maqnahay 3 maalmood. waxaan ku soo arkay wax aad u qurux badan, nabadgelyo iyo dadkii oo meel isugu wada tegay, ama jabad ha noqdo ama new police ha noqdo ama shacabka ha noqdo. arrintaana ay keentay maamulka wanaagsan iyo isbeddelka dhacay ee deegaano kale. waxaan rajaynaynaa message-kani inuu gaadho bulshada Soomaaliyeed inta la midkaa ama ha noqoto North America ama Europe ha noqoto. sidaas oo kale iyaguna inay baaqiyo ay soo saaraan oo ay ku taageerayaan dowladooda. waana mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la yidhahaa injineer cabdikariim macalin cumar. waxaan rabaa halkaan inaan baaqu ka diro iyo bogaadin dowladda madaxda ka yahay cagshar oon ku bogaadiyo waxa ay qabteen ilaa hadda intuu meesha yimid. inkastoo waqti yar ay tahay haddana waxyaabo la taaban kale qabteen ay ka soo baxeen. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meesha degan dhulkaa degan in la u sheego inay khilaafka iska daayaan oo waxa loo socdo ay ogaadaan inay tahay
in la qaato hantidooda in la qaato shidaalkooda in la qaato gaaskooda inay markay israacaan gacmaha isqabsadaan baa loo baahan yahay madaxweynaha stateskana waa taageeraynaa waxaan ku bogaadinaynaa inuu difaaco suu haddaba u difaacay jiritaanka iyo qadiyadda iyo horumarka shacabkaas. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhahdaa cali jaamac waxaanu taageeraynaa marka koobaad madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mudane mustafa marka labaad marka saddexaad qodobka labaad iyo qodobka saddexaad waxaa weeye in loo daayo soomaalidu inay iyagu ay ismaamulaan lana ogolaado rabitaanka dadweynaha Somali state haddaan taas la yeelina waxaa dhici doona burbur iyo waxay arrintu gaari doontaa meel aan waxba laga qaban karin marka mar walba waxaan soo jeedinaynaa annaga oo aan taageeraynaa go'aamada xukuumadda hadda jirto madaxdu ka yahay Mustafa magacaygu waa Cabdulqaadir Jaamac Bare dadka waxay degan ayaa ka mid ahay odayaashan ayaa ka mid ahay waxaan ka hadlayaa laba arrimood annagu Soomaali ahaan haddaanu deegaankaan nahay odayaashiina magaaladan waxaanu aad iyo aad u taageeraynaa midnimada Soomaaliyeed stateka waxaanu taageeraynaa hoggaanka iyo meesha Soomaali ay u socoto hadda qof kasta oo Soomaaliya waxaanu ku waaninaynaa u sheegaynaa guda iyo dibadda oo meel kasta ku noolaa ummadda Soomaaliya inay mid yihiin isku dan yihiin isku qadiyad yihiin qof noolaan karo oo Soomaali la'aanteed ma jiro bilaa insha Allah waxaan meeshan ku joognaa say waxgaradka iyo culimada iyo aqoon-yahanka jaaliyadda Columbus ee gobolka Ohio ay sheegeen in aan u jeedino baaq midnimo ah mujtamaca Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan midnimadaasuna waxay ku imanaysaa in laga fogaado wixii kala qoqobi kara wixii wiilyaabtigii isku diri kara wixii dib inoogu celin kara nidaamkii hore tegay ee TPLF waxay horseedka ka ahaayeen oo ummadda baday in ka badan rubuc qarni in Soomaalida la isku diro in wiilyaabtigii qori la isugu dhiibo in meeshay doonaan Soomaalida ay iska soo qabtaan nidaam dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed meeshay doonaan joogaan isku dira in dib loogu celiyo ashkhaasta horboodisana haddaanu nahay jaaliyadda Columbus ee gobolka Ohio arrintaa waanu uga digaynaa ummaddana waxaan leenahay midnimadeena ilaashada waddankuna siduu Sheekh Mukhtaar sheegay hal madaxweyne leeyahay madaxweynaha ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayrka waafajiyo isagana ha looga dambeeyo talada guud jazakumullah قنديل فاروق حمرك قوليسا قلقلي قنديل فاروق حمرك قوليسا قلدانك قبيل سوءك يقاتل سوسي السياسة قصاص لو مصير قول مركي جليسهم حقنا قرقري ينطوان كذا خفينا حقنا غروريين بوان كذا بفنايين بركن سجد قواحي قلال القدد عبوريشي قبلي يدركن قلفريتي وقرن فيه سيدان قد احتاج يار يقوف الكيو قوان بدو سيكتي قرش السمو قران تبقشي وقري تبكو داشي قوة بلاها أي كذا قبطان عركو غودانيين ميقين خقوض وقرن قليداسين قرن قارون ممجوج الزواتر خلح باسين قرن ممجوج الزواتر خلح باسين قل قدري كاي قصدنا حوقي لويقين قوع من سقود كذرباه قلوم بيوين زي حشرية بنكي قسمي جلين قرصونيين قدور قمهدينكو قسنا نقيت تفرد لمدى إياه تلسي قلنا سيوقر مريسان كذا قرن جدي كودة تريق مرعويس كاهي وقفل مذا غران وقدري ما حقان قارين
قبل مدوحة لقو قدري ما قنقري جنا يدكو كمر جادتي مودي خير ربين قصاري قبيل قال قباتك خشوعيا فقا قودا اكو قتلنا اقوك الاريوم دقن تقفعين اقول ماشي لغو قمي مقنعيو وحكم قوستها قايو كالسيغي مقوم مني قديد معدنك خلق بدوين قل حيث مسجي قصدي تمركز قل حيث مسجي قصدي تمركز وحرقابكم في الشباي ما قسيانين أفقلوا دي شارقا بران ويدو غافلين أفقلوا دي شارقا بران ويدو قايبين كقبويني والله ما قلتي وابنغور سغيه اسم قبنو إمن قلمانو ما غير سدوين وكو سفرت قول كان لا قريم أيام إيمان تريق